السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Soomaali waa Cabdirashiid Cali Sheekh Maxamed. Markii isu keen dambeysay waxaan idinku iri muddo badan baan soo hadlay wayahan warka waa ka nasan. Laakiin waxaa timid arrin emergency oo laga aamusi karin oo ciwaanka meesha ku qoran ku saabsan afartii beelood iyo beeshii shanaad baa is haysta. Waxaan ka wadaa afartii beelood iyo beeshana waxaan ka wadaa waagii Jabuuti la isugu tagay. Gaaladu waxay wax noogu qaybiyeen 4.5 qolo waxay dhaheen waa 4 points, qolona waxay dhaheen waa 0.5. arrintaasu anu markaa macnaynayo waxaan ku macneeyaa 1884 markay Baarliin ku shireen nimanka reer galbeedka oo na kala qaybsadeen Afrikaanka kala qaybsadeen Soomaaliya bay shan u sii kala qaybiyeen. marka hadda afartaanna marka hadda 4.5 kaasna shantii qaybood loo sii kala qaybiyo way macnaha la sii kala fogeeyo way yaan mid ka salaamin. marka hadalka inta badan oo hadlayay oo iga daawateen ma taqaana meeshan Facebooka waxa weeye xataa marka lagu daro kii ugu horeeyo aan ka hadlay oo qabiilooyinka nimankii saddexda u jawaabayay oo la qabiilka Soomaaliya tirsiye male xataa waan ka hadlay waan sheegay in dhibaatada Soomaaliya ay gaalada reer galbeedka mas'uul ka yihiin ilaa haddana waa qaba. waxa weeye marka beel 1 point ah iyo beel 0.5 ah wax jira ma waa munaafaqad iyo isku dir way. taas horta waa intaas aan u gudbayaa. marka beeshanaad waxaan ka wadaa meeshii Jabuuti lagu qaybsaday ay lahaayeen 0.5 baan kala jeedaa. af Soomaali ahaan haddii la sii qeexo ama aan sii ma taqaanaa idin sii cadeeyana waxay noqonaysaa dadkii hore oo Soomaalida ah oo naga horeeyay kumanaankii sano ee boqol sano naga horeeyay dhaqankoodii asalkiisu reemiga ahaa sheeka ay keenan oo la yiraahdo ma taqaanaa nasab iyo nasab dhimad maxaan ku waraxdaa dadku inay kala sareeyaan wax noocaas arrin ku lug leh oo qadiimiyo oo gabowday oo maxaan ku waraxdaa muddo badan jirtay oo raagtay way. oo marka dadka hadda noolna qaarkood u maleeyeen wixii hadday raageen inay wax sax yihiin. marka waxa loo kala qaybsan yahay afar qaybood iyo hal qayb oo beeshanaad ay dhaheen. marka saddex qodob baan ku sharaxayaa maanta arrintaas. qodobka ugu horeeya waxa weeye sidee arrintaas loo xallin karaa dulankaas dhacay kumanaan sano ka hor iyo boqolaal sano ka hor baadiye ka bilowday ilaa haddana qaarna tageen qaarna weli dhiman yihiin. inta dhiman see loo cirib tiri karaa oo loo gudbi karaa waa qodob. qodobka labaad waa dhacdadii ka dhacday Burco iyo Suldaan Nadiir iyo xarigii la xirxiray isaga iyo ma taqaan dadku suldaanka waa qaar ka mid ah oo xaafado dagaalamay ka bilowday. qodobka saddexaad waa dadkan social media ka hadlahaya Facebook iyo wixii la mid ah qaabka ay arrintan ma taqaanaa u lafagurayaan uga hadlahayaan u qeexayaan oo qaladaad badan iyo aflagaado badan iyo dulan badan iyo dhibaato badan iyo isku dir badan iga muuqdo. in badan waan ka dhageystay oo anu seedo marka wax soo diyaarsanayo waxaad aragtaan anigoo hadlayo oo qalin warqad wadan laakiin anu asbuuc laba bil dhowr bil bay ugu qaataa. marka sida quraanka u soo xafidaa waxaan ku hadlay xataa erayad oo soo diyaarsadaa waa kala mirmiira waxaan soo sargooyay baan keensadaa meesha anu macna nin inta iska soo kacaas u soo socdo meel soo fariistami laakiin anu uma taqaan sida wax warqad lagu qoro anu hadal uma aqaan. anu hadalka waxaan u aqaanaa sida quraanka wax madax kugu jiro marka u baahato soo qaadan karto kaas anu aqoon waqan cilmiga taasaan u qaadan taasaan u qaadan laakiin wax warqad laga fiirinayo warqadu markii decimal point loo baahan yahay xisaabiyo lagu xisaabtamayo oo electricity wax la ma taqaanaa bill iyo lagu keenayo inaad qalin warqad qaato waa muhiim. laakiin hadal dal rabo in dad wax la fahansiiyo waxa weeye wuxuu u baahan yahay in la soo xafido in la soo diyaariyo in la soo sargooyo in qaladka laga soo reebo in asagoo ma taqaano la fahmi karo in meesha la timaado. qaabkaasna waa qaabka wax u diyaarsado way. waxa weeye marka qodobka ugu horeeya waxaan u arkaa
arrintan laba qayb bay ka kooban tahay labadaas qayb haddii qayb walba shaqadeeda qabsato waa la cirib tiri karaa laakiin haddii labada qaybood aysan hawshoodii qabsanin ama qayb ka mida ay qabato qaybta kale qaban weydo arrintu weligeed meesheeday taagnaanaysaa mana dhammaanayso mana la kala baxayo ilaa qiyaamaha waa la kala lulanaya waa la isnaacahaya saasaa la isku haysanaya ereyga macnihiisa waxaan ka wadaa qolada 4 la baxday ama 4 beelood waaweyn la baxday oo tunka weyn leh say sheeganayaan shaqa laga rabaa qoladan beesharaanna ayagana shaqa laga rabaa marka la isku daro labadoodana shaqa laga rabaa marka waxaan u hormaraynaa labadoodana isku daraynaa ayagoo muslina oo Soomaali ah ayaan waxaan leenahay hawshan waxaa lagu cirib tiri karaa kow culummadu inay diin ahaan cadayso waxaan in diinta islaamku ay ka soo horjeedo ayna sax ahayn oo ay qalad ku tahay in dadka qofna sareeyo qofna hooseeyo odayaasha dhaqanka oo beelaha Soomaaliyeed suldaanka u ah suldaamada u ah ama suldaande ama ugaasde ama boqorde ama garaadde ama wabarde adiga ama islaande ama islowde dhaqamada waa lagu kala duwan yahay erayada laakiin nuxurku macnaha waxa weeye boqor iyo ugaas iyo wabar iyo garaad waxa u taqaanaba inay shacabka ka dhaadhiciyaan waxaan inuu waa hore bilowday oo diinta islaamka aan aad loo aqoonin dadku waxa daariyada ilbaxa wax akhriyo usan ahayn in la guuro in la soo gaaray xilligeedii la xiro sabjagaas loo gudbo oo mataqaana wax la xiray u noqdo inay mujtamaca ka dhaadhiciyaan qodobka saddexaad dowladdu inay arrintan culummada iyo odayaasha beeluhu ay culummaduna keentay odayaasha beelaha la qaateen shacabkii loo bandhigay inay sharci ahaanna ay fuliso oo shareecadu qofkay ku xukunto inta qaladkan gala wixii lagu xukumo dowladdu inay fuliso hadday xabsi tahay iyo hadday mataqaana cinqaab kala tahay iyo hadday lacag ganaaxa tahay iyo dowladdu inay kharashna ku bixiso arrintan si loo hirgeliyo oo culummada iyo odayaasha iyo xataa dowladdu ay ku darto mataqaan dad dowladda ka socda ayagoo dhan la isku daray laga dhigo mataqaana hal guddi ah oo institution ah oo macnaha hoggaan ah ama xataa wasaaradba loo sameeyo oo hawshaan ilaa ay dhammaato daba socdo haddii rabto 100 sano nagu qaadato waa qodobka saddexaad qodobka afraad ugu dambeeya mujtamaca Soomaalida ama beelaha Soomaalidu inay aqbalaan laamaad isku heli maysaan inaad muslim baan dhahay dhahdaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam baa raacsanaa dhahdaan iyo inaad dhahdaan dadka waxaa jira dad nasab ah iyo dad nasab ahayn dad aji ah iyo dad aan aji ahayn dad sareeya iyo dad hooseeya iskuma keenaysaan labada mid dooranaysan ama rabbi rasuul baad raacaysaan oo rabbi rasuul ciwaankoodu muxuu yahay calaamadoodu maxay tahay qaacidoodu maxay tahay qaala tacaala in akramakum cindallahi atqaakum in allaha caliimun khabiir waxa weeye marka taasna shacabka laga rabaa arrintuna waxa weeye waa arrin la rabo shacabku inuu si diiniyan u qaato si diiniyan inuu u qaato oo aqbalo culummada iyo odayaasha dhaqanka iyo dowladduna ay intii laga rabay la yimaadaan oo hawshan lagu qaban lahaa intaasu waa inta guud wey waxaa soo haray marka ayadoo la isku dhan yahay wey markaas oo 4 beelood iyo beeshan la wada socdo wey macnaha 5 Soomaaliyeed oo la isku daray saas in loo xaliyo arrintii waxaan usoo gudbaynaa 4 beelood qaladkay leedahay muxuu yahay qaladka beeshan arrintan ku leedahana maxay tahay waxaan arkaa arrintaas waa 50-50 aniga marka araggayga loo fiiriyo san wuxuu arko iyo qiyaastayda iyo intaan arrintan ka ogahay iyo sida anugu mataqaan wuxuu qeexo kontonna qaladka waxaa iska leh 4 beelood kontonna waxaa iska leh beesha shanaad baa iska leh 4 beelood waxay ku qaldan yihiin arrintan inay soo alifeen inay ilaa hadeertaana daba socdaan inay taagan yihiin walaalahana anagu nasab baan nahay ayaguna nasab maaha qoladan iyaga maxaan ku haystaa oo 50 ayagana uga dhigay waxaan uga dhigay waxay aqbaleen in qof la mid ah inuu yiraahdo
أنا نصب أنا هاي أنا نصب لما باتا way aqbaleen ayagana saasan 50 ku sii waxa laga yaabaa marka halka maraysid inaad tiraado Cabdirashiid muxuu ka wada way aqbaleen haddaan ku qeexaya marka inay aqbaleen qodobka ugu horeeya 18 gobol ayay ahay dawladii kacaanka oo askarta nimankii golaha sare oo maxaa bare uu hogaaminay waddanka waxay ugu yimaadeen 10 gobol 8 gobol 10 bay ku dareen 8 gobol bay ka dhigeen dawladii ka horeysay oo 60 ilaa 69 oo rayidka shacabka ahayna 8 gobol ba waddanku ahaa 60 ilaa 90 maalinka xabadu bilaabatay waa 30 sano 30 sano 18 gobol intay aadan caddo u tageen ayagoo mid ah oo boqorkoodii wato guud la fulbana ugaaskeedii wato inta aan caddo u tageen mayso oranin 8 gobol waa in 3 gobolna la siiyaa 4 gobolna la siiyaa 2 gobolna la siiyaa intii tiradu tahay intay soo qiyaastaan iyo inta gobol ku haboon inay ula tagaan dawladda kuraasteeda intaasaan ka rabnaa ilaa gobolada wax lagu qabsan jiray waagaasbe maysan oranin nimankan waxaa la soo gaaray 69kii maxamed sabar umay tagin mayso oranin waxaan wadanaa qorshahan 18 gobol ka dhigtay 10 ku kordhisay 18 kan gobol awal weyna 9kii sano hore maan u tagin dawladii hore adaan hadda ku nimid waxaan u baahnaa 18 gobol in 8 kumina la siiyo ama 7 ama 6 la siiyo in dawladdu waxna la ka siiyo in wax kasta oo waddanka qaybtan la siiyo ayagoo boqorkoodii wata oo hal u hadlayo halkaas boqor la fulban ugaaskeedii wato haddana may samaynin Djibouti la soo gaaray waddanka waa burburay 2000 la soo gaaray Djibouti markii la tagay qorshahan hadda aan sheegay lamay tagin Cabdulqaadir Salaah Xasan madaxweynaha markuu xamar soo fariistay oo lamay tagin maxaan haynaa 60kii 69kii 69kii ilaa 90kii 2000 oo 90kii ilaa 2000 10 sano isku abuuli kareen waa la shirtay kareen lama imaan 4 sano Cabdulqaadir oo lama imaan ninkii la oran jiray Abdullah Yusuf Afrisan Olomayman Sheikh Sharif Olomayman ninkii Sheikh Hassan Sheikh Maxamuud Olomayman maxamed Abdullah Farmaajo Olomayman oo hadda aan wada hadlayna maanta aan hadlayo waxa weeye marka waxa la idin ka rabay beesha sanaade maalinka calanka la qaatay wixii ka horeeyay dawladda lama hayn waddanka Talyaani Ingiriis ba gumaysanay Faransiis inaa san idin sheegay intaad samaysataan boqor guud oo adinkoo dhan idin hoos timaadaan sida qabiilooyinka afarta oo kala beelood oo kala ugaasdiina samaysataan inaad intaan hadda soo sheegay soo martaan maadina sameyn maantaan taaganahay 2018 waxa weeye marka dadaan waddanka waxa weeye hadda waa xal yiraahdaa federal waxa lagu qaybsadaa 4.5 gobolada degmooyin baa lagu qaybsadaa haddaad idin gobolada idin khaasa iyo degmooyin idin khaasa idin lahayn waddanka waxba ka heli wax ka helisan jiro waxba ka heli meeshan wax hadda la idin siiyana waa 0.5 ayada meel ka dhacba waa bi ihaanaba inaad qaataan waa ihaano waa mid hadda idin leeyahay qayb ka tihiin sababkaas inaad in 18 gobol ku lahayn oo idinka khaasa inaad in ugaas guud adina lahayn boqor guud adina lahayn oo waashidu hoos yimaadaan iyo tan ugu daran oo ah inaad tala guud oo isugu timaadaan adina lahayn saddexdaas qodob aan idinka fiiriyay saddexdaas qodob aan 50 idinku siiyay qalad wax ku leedihiin haddaadina saddexdaas hadda idin sheegay samaysanina afartan qolo oo hadda sheegata inay ayagu tunka weyn yihiin ama nasabka yihiin waxa weeye si ay wax idinku qaban doonaan anu iyo muuqato wala culumadooda wala waxa ku dartaa nimankan la dhaho odayaasha beelashada xukuma wala dawladaha ay madaxweyne ka yihiin sababta adaa shaqada soo qabsan waayay nimankan oo ku fiirsanaya awalba ma taqaan abkooda ugu basan ku galay waxa kaliya marka aad kaga bixi kartaa waxa weeye waa qaabkan aan sheegay inaad samaysaan haddaba marka su'aashu waxay tahay qaabkan maxaa diidan waa su'aal kale hadalka ka soo dhex bixi karto oo isweydiin kartaan ama ay weydiin kartaan Cabdirashiid maxay ku dhici weydad inay gobolo samaystaan beesh sanaad inay degmooyin samaystaan inay boqor guud samaystaan beelba inay ugaaskeeda ma taqaan boqor hoos yimaado inay tala guud ay la yimaadaan ay marka Soomaaliya kala kula xisaabtamaan maxaa u diiday waxa u diiday tusaale ahaan hadda aniga maqaxaan fadhiya laba nin
laba nin baa xaggan iga fadhida nin baa u yimid labadii nin ani meeshaan fadhiya waa dhegeysanaya ninku wuu salaamay nin bay siqa nin kale ismaa qun ninkii xoogaa buu koob shaab cabay waa iska tegeyba labadii nin ninkii ninkan ma ilma adeer baa tihiin kii su-aasha la weydiiyo oo ninkii taga yaqaanay wuu qoslaya wuxuu leeyahay oo hadda markaan ku barahay in adeer baan kugu bara laakiin ninkan aabihiisii shanaad lixaad baa nala soo degayo waa beesha shanaad oo 0.5 ko dee ninkii laguma qarxin karo wuu naxaya adoo anagoo hor fadhino lama dhihi karo ninku waxaa weeye waa qolada anasabkaayno oo la tag xiray oo maxaan ku rahda la takooro wey ma dhihi karo marka saasaan ku yidhi adeerka marka anagu naga tirsan yahay awowga iyo aabaha iyo abkowga waxaasa yaa yala joogi jireen oo way nala degaan wayna sheegtaan ninkan isaga oo tegey arrintan hadda oo xanta ah oo kale uu mar kula fadhiyan u munaafaqadeen uu leeyahay in adeerkii weeye markuu ka tagay saa wuxuu amanayo wuu ogyahay inuu soo ogaan hawmal wuu ogyahay haddana hadhow markii la isku yimaado kan uu sheeganaya kan asaga caayo xaman uu sheeganaya wuxuu leeyahay jilibkiisana ninkan kale oo asaga ku levelka oo macnaha jilibka kale asna mataqaansaad kale u sheeganaya inuu u taga ma ogola oo uu ka faanaya wuxuu leeyahay anugu waxaan nin nasab ah oo reer hebela waa qolo la degay kaas kale ka faanay wuxuu leeyahay kaas mataqaan waa nasab dhimad ama mataqaan ajimaha marka ayu nimankan waxay sheegeen beeshan waxay always waxay sheegaan beesha afraad baan cunsuriyeysan laakiin ayaga laftigooda baa dhexdooda cunsuriyad ugu weyn ka taaganta mid ogol ma jiro mid walba midka kale buu hoos u fiirinaya wuxuu leeyahay kanu waa beeshanaad asaga dhahayd waa beeshanaad ana waxaan ka wadaa asaga wuxuu leeyahay waa dadka la tag xiro oo af Soomaali tag xiro waxaa la dhahaa qofka aad tiraahdo gabarna ka guursan maayo gabarna ku guurin maayo wiilkaygu gabadhaada guursan maayo wiilkaagu gabadheedu guursan maayo af Soomaali tag xiro bal dhahaa macnaha waxa weeye dadkaas ma tarmayaan isma tarankood isma dhex galo wey ayaga marka beeshanaad waa inay arrintan joojiyaan oo ayaga maadaama ay ex wajiga kaga dhigeen afartan beelood oo ay isku tilaab ay ku qoreen oo ay ayaga isku hal go-aan ka qaateen ayaguna waa isku raacaan inay hal go-aan ka qaataan afartan beelood oo kasoo horjeeda dulmaysa ay hal meel isugu tagaan cilmigooda caqligooda dhaqaalahooda degaankooda dhaqamadooda waxooda dhan meel ka dhigtaan hal boqor samaystaan ugaashadooda boqorkaas hoos yimaadaan hal tala yeena samaystaan deedna ay Soomaalidan afarta ah oo dulmaysa la xisaabtamaan dowladaha Soomaaliya ka jira la xisaabtamaan saasaan marka qeexitaankay waa noocaas saasaan waxaan u leeyahay nimankan konton bay qaladka leeyihiin beeshanaad kontonna waxaa iskale qoladan sheegata inay badan yihiin ama ay nasab yihiin ama ay tuwan yihiin marka aan saa u hadlahayo waxaan u hadlahayaa garta haddii lii dhiibo la yirahdo cabdirashiid gartan qaad oo kale saan u qaadi lahaa wey marka gartu naxariisna male baqdinna male beenna male qof laga weji dadbana male qof loo eexdana male qof laga eexdana male waa sida ay wuxuu u jiraan in loo qeexo loo sheego loo qaado garta wey waxaa weeye marka haddii la rabo in waxaan la xaliyo qoladan afartaana waxaa laga rabaa dulan baad bilowdeen abkow iyo abuulankiin iyo absaxankiin iyo awoyaashiin baa bilaabay kow horta waa inaad joojisaan ilaahay uga toobad keentaan dadkan waa inaad ku saban xirtaan waa inaad wax allaale iyo wixii aad joojiseen ood kala xirteen isku furtaan waa inaad well respect markay yimaadaan fadhiga loo kaco loo istaago la respect garay la xusmeeyo wey xusmo gaara la siiyo oo intii mataqaana awal dhibaatin jiray waa in si gaara kuraas looga kaca ilaan walaalka haddaad dulanto ood ka gardaran tahay inaad xusmaysto u istaagto qadariso waxay ka tirtiraysaa wixii hore u geysatay hadda qoladan afarta beelood wax badan baa ka dhammaaday oo waagii baadiyaa jiri jiray baa hadda jirin waxaa ka mid ah guurkan ka hadlayn tagxirka oo kale tagxirku hadda wuxuu ka jiraa baadiyaha tuulooyinka magaalooyinka yaryarka laakiin caasimada inta badan caasimada waa ka dhamaad ama kasii dhamaan raba caasimad kastoo Soomaaliya hadda waa la isguursadaa Afrika iyo Yurubta iska badaa oo hadda afartii oranaysay annaga ka sareyna beeshanaad ayaga gabdhahoodii iyo wiilashoodii waxay guursadeen kasoo bilow Kenya Ethiopia Yemen baa noogu sokaysa
waxay guursadeen yeman waxay guursadeen eeshiyaanka o dhan waxay guursadeen afrikaanka etoobiyaanka ay uga horeeyaan ilaa maa konton iyo afarta dowladood oo africa mid gaarta sheeg nigeria maxaan ku rahdaa benin maxaan ku rahdaa niger ghana maxaan ku rahdaa nimankan la dhaho chad sudan eritrea ethiopia maxaan ku rahdaa tanzania uganda mozambique zambia ninka la yihahdo angola waxaa rabta sheeg maca kasta adiga cameroon konton iyo afar dowlad weeye konton iyo afartaas afartan qolo oo sheeganaysa inay iyagu yihiin beelaha waaweyn tunka weyn oo nasabka sheeganaysa gabdhahoodii africa konton iyo afarta wadanba way wada qabaan qaarkoodba xataa gaalaha iyagoo gaalaha oo madow oo aad taqaanaa say u eg yihiin midabkood oo marka midabkoodii kan somalia bardhiga aad kala garanaysa qofkan waa nigerian qofkan waa kenyati qofkan waa ethoobiyan qofkan waa somalia ad kala garanaysa bay qabaan oo qaarkood gaalo yahay qaarkoodna muslim yahay carabaha iyo eshiyaanka imo hindi dheh bakistani dheh afghanistan dheh indonesian dheh waxaa la kulli chinese dheh koreyaanka dheh waxoo dhan way qabaan oo ayaguna gaala isugu jira muslim yurubta imo waa sidoo kale yurub gaalaha arkaysaa qaba gabar soomaaliya oo afarta macnaha beelooda mid gaal ah oo qabaad arkaysa madowga ku dar mataqaanaa jooga mataqaanaa reer galbeedka meesha reer asalkooda ka yimaadeen ama sunrama ka yimaado hadduu holan joogo ama halkan ka joogo jamaican ha ahaado ama canada ha joogo jamaican ha ahaado ama waxay rabaan america north america south america ama latinia kuwa la dhaho kulli ayagoo muslim gaalaha gabdhii soomaalida qabaan waxaa weeye 223 wadan oo adduunka ah intiisa badan ayagoo gaalo leh oo madow leh ayay qabaan gabdhihii afarta beelood qoladan kaloo beeshan ama sidoo kale ayaguna waa la mid oo soomaalida waa isku mid kulligii soomaalida waa isku wada mid soomaalida hadduu dukaan biyo furto kulli dukaan biyo kadaba furanaya hadduu garaash loo furto waa kadaba furanaya waa isku dhaqan wey ila wadada isku haldada isku hal oday dhalay waxaa weeye marka horta guurka asagu ayadoon cidba ka tashan oo laysku imaanin yuu baaba-ay baadiyaha iyo meelo yaryar oo tuulaa buu ku haray ayadaasna haddii talada hadda aan sheegay loo helo oo saldhigeedu asalkeedu dhaqaalo yahay waa iska dhammaanaysaa waxay ku xiran yihiin in talo la helo in xukun la helo in dhaqaalo la helo haddii intaas la helo aqoon baa la helin haddii aqoon la helo diinta la barto cilmiga la bartaan maadigaana qofku wuxuu garanayaa dembiguu galay waxa qalada waxa sax عندك ما حد قبل مركز أصلاً الواحد مو قالني أصل واحد لو حقص ورثة جاهلية كبر على ثي هذا جاهلية كم شا واحد إذا علمي لو دين لو إسلام أو حكى قرني واحد ما أقبلان كمان رقمان منا يلان كمان صعدان كمان فرحان أنت قلبك أسكت يجود مركز واحد تاجنا يعني كنت عندي دوت كقبت ما قاعد شيء على شيء محمد الله لندن بكون ولا هاي إسكنسي ورخون يكون يران نبأنا كودرو يوهالي أنا waxaa u gudbaya qodobka labaad oo burca ka dhacay suldaan nadiir horta suldaan nadiir waan ku salaamay suldaan adeer waan ku salaamay si weyn baan kuu salaamay adiga dhowr qodob baan ku leeyahay marka ugu horeysa horta suldaan umatid beeshaada shanaad umatid keliya soomaali dhan baa u tahay guud ahaan gaar ahaan somaliland suldaameeda ka mid tahay suldaan somaliland baa tahay nidaamka iyo sharciga iyo kala dambeynta somaliland mas-uuliyad weyn baa kaa saaran sida suldaamada kale ay u rabaan inaan maamulkaas burburin oo uusan halaabin ayaa adna lagaa rabaa inaad maamulka uusan burburin oo uusan halaabin oo wixii fawda iyo dhibaata inaad ka ilaaliso taas waa midda guud waa qodobka kugu horeeya qodobka labaad haddii lagu xiray suldaamo badan baa la xiray burcad lafteeda suldaamo lagu xiray hargeysada lagu xiray maalin kasta maamulkan somaliland uu suldaamada xirxiraa haddii dumar laga xirxiray maamulka somaliland dumarraa u xirxiran oo gabdha ka horreeyey dumarkaa ka horreeyey oo beeshaada ka horreeyey oo facebook iyo kuwii jira la wada yaqaano oo qaarkood xataa 10 sano 8 sano ka hor dhaceen abshir bacadlu waa kii ka gabyahay gabadha mataqaan hargeysa lagu xiray gabaygaas waa wada haysaan baan u malay dabcan adiga suldaanka waad haysaan baan u malay waxaa weeye marka qaladaadka hadda adiga lagaa galay ama beeshaada laga galay ama dumarka iyo carruurta laga galay waa qalad ka jira guud ahaan soomaaliya oo dhan ama xamar ka jira ama ka jira maamul goboleeda kale ama ka jira somaliland
wax adiga beeshaada horta u gaara maaha saad u dhahaysaan oo hadda Facebook iyo social media aad uga dhigaysaan wax adinka idin gaar ah oo si gaar liidin gacan bidixanina ani Cabdi Cali Sheekh Maxamed uma arko waxaan u arkaa dhacda ka dhacda Hargeysa ka dhacda Gabiley ka dhacda mataqaana meesha la yiraahdo Laascaan iyo Boorame ka dhacda maxaan ku raahdaa maxaan ku meesha la oran jiray Baran ka dhacda Laas Qoray ka dhacda Ceer Gaaba ka dhacda Burca ka dhacda maxaan ku raahdaa Odweyne ka dhacda meel kasta ka dhacda 28 sano waddanku burbursan yahay dadka la laaya oo nafta laga qaada dad baa la dhaawaca dad baa la xirxiraa gabdhaha la kufsada waxa kula qaba soo dhan baa kula qabta wax ku gaar ma laakiin meeshan hadalka ka dhigaysaan farta inay isku godeysaan oo dhahaysaan fartaadna la ku goday anigu kuma raacsan warka totally anu ma aqbalay cid far ku godeysa adiga ma jirto wax cid far ku godeysa beeshanadna ma jirto dhacdadan burca ka dhacday waa dhacdooyinka ka dhici jiray burca mid la mid ah way marka waxba inaad mataqaana kuleelka badisaan oo mataqaana hiitarka xoog u daartaan oo ka dhigtaan in Somaliland isuukin tagtay oo Somaliland beelaha daga ama waxa dhada Sheekh Saxaqde ama Samaroon Siciide Gadabuurse ama qoladan daarado dhul baantii warsan galide ama beelaha kale oo Soomaaliyeed degan ma arka anu wax gaar idin fuquuqayo oo arintan si gaar ah idinka target u tihiin iba muuqato in la sii buunbuuniyo Facebook laga buunbuuniyo meel kasta la isaga habar wacdo oo Soomaaliya la dagaal geliyo la yiraahdo beeshii shanaad baa burca lagu weeraray suldaanka la xirana waxaan u arkaa waxyaalaha hadda aan daba taagnahay oo ka hadli doono weeyo waxyaalaha qaladka sii kordhinaya oo boogta si danqinaya way wax faa'iidana male ma xurna male waxa weeye dadka isku dir iyo kala fogeyn weeye xalna ma in dadka la isku diro in dulmi la abuuro xal ma taas suldan kale ma jeedo dadkaaga hadii dambi laga galo ama la dhaawaco ama la dilo uma hadli karti kama wado inaan dhaawac la gaarsiin ama la xirin ama la daqrina macnaha doodaydu saas maaha laakiin doodaydu waxay tahay adoo suldaan Soomaali ah oo suldaan Somaliland ah oo suldaan beesh sanaad ah baad gartaada cadaysanaysaa meesha hadda idaacada aad ka hadlaysid oo madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha ina kaahin iyo taaniga ciidamada xukuumadda aad idaacada kala hadlaysid baabuur inta ka qaadid burca oo Hargeysa tagtid madaxweynaha xafiis garaacid Suudaan laga macdiyo dhaqan Soomaaliga waa qaan nin yar mid oday weyn oo kontay ku jira Soomaaliya oo ka soo shaqeeyay waan garanayaa xafiiska madaxweynaha Soomaaliya inta uga soo taagnaan jirtay laga macdiyo waa qaana cid ka celinaysa male hadduu xataa marka mashquul yahay wuxuu leeyahay ugaas Suldaan Nadiir maalhibil ali balami من صبيح وهو فريسانس انت عندك كل شيء صارت كل شيء ما حيكون على انت سقف ولا يقدلي ما حيكون على انت سقف ولا يحري ما حيكون على انا سلطان اللي حري وكاقر بحي waxaad u tagaysaa wasiirka arrimaha gudaha ina kaahin waa hor fariisanaysaa inta had iriyo kala ku dhahaysaa oo musubic ku tiri ina taaniga u tagaysaa macna suldaan ka hadlaya idaacad waxa ka fiican suldaanku inuu wuxuu tabanayo ila meesha asba madax buu ka yahay inuu hor fariisto maaha waa ka fiican wixii hadda ka dambeeya hadda Soomaalidu soo jeedisay shantii qaarad bal la hadashay lagu aragay lagu barayay awalna waa lagu yaqaanay suldaamadu way yaqaanaan waxa uu la garan waayay maad ahayn laakiin aniga Cabdishahaan waxaan ku talinayaa anoo tixgelinayaa maamulka Soomaaliland oo ka mid tahay in aad u muuqato oday Soomaalidu dhan Suudaan u ah oday Soomaaliland Suudaan u ah hadana oday bis oo ah suldaan macna saddexda inaan mid ka hoos dhacdo midna ma rabo arintu markay Soomaaliland taagan tahay wana Soomaali istaagtaa markay taagan tahay Soomaaliland wana Soomaaliland taagan tahay markay taagan tahay beeshaada una beeshaan tahay oo macnaheedu tahay saddexdu waa soo fashin kartaa adoo beeshaada difaacaya ba hadana kaarkaaga waxa difaacan kartaa suldaanka Soomaaliland iyo suldaanka Soomaaliyeed inta waxaan ka gudbay suldaan Nadiir waana ku salaam adeer mar labaad si weyn baan ku salaamay waxaan u gudbayaa dadkiina aan ka hadla social media حوي أرنتا أكاد ليسان وأرن تاريخ كنت حلق ذوي وأرن دين الإسلام كنت حلق ذوي وأرن إمام كنت حلق ذوي وأرن وي أرنوي دا كنت حلق ذوي وأرن صاد واحد ليسان إن لوجه الله أنكوها بوني وي
وأرين قف كاس إنه كهل أصحاب كله هنوي معناها هو هذل كرا كان برا صهر فريسان كرا أرين تان وكقطة درت أدي أرين سوي شرت دور كم أصلا 5 دقيقة نص ساعة بان هلا هيا هذا waxaan ku hadlahayaa waa wax dadkii si kala fogeeyo oo arintii si qaribayo oo boqti si danqinayo oo ummad isku sidirahaya waxa weeye marka shar iyo balaayo soo kordhisay wax khayr soo kordhisay male waxa weeye marka dadkiina waliba dhalinyarada u badan rag iyo dumarba dhalinyarada u badan arrimaha Soomaaliya intiina badan waa si qaribaysan ma ahan ma hagaajinaysaan sababtu waxa weeye موضوعية واحد جلسان عدينا أقون ولا هين ويعرنم ولا هين دادي تشرين عدالة دي لهين دين تتقرنين أرنتان علماء الصومال ويكهلين دولة الصومال ما حد ويكهلين وداش رقم ويكهلين لكن وليبا وحان للصمين وسارد وقارعة وبقول سنة الله بقول سنة إلى أيضا ما تكون سنة حقاتي دبا سعطة يان ولي للصمينين خرجنا لغو بحين حدابا marka waqti hada waa hadlin 2018 Soomaaliya maxay ku sugantay dawladda Soomaaliya ma dawlad hada u baba dhici kartaa inay ma taqaan arintan gasho maya oo baba dhici karto kamana bixi karto hada waxa noo taala shaqo ah wadankeeni baan la ka qaadanayaa oo dawladeeni baan ma taqaan la ka dumiyay 9kii hadana in ma taqaan la dumiyo la rabaa oo aan inay dhisanta la ogoleen la hor taagan yahay horta bal dadkan ajnabiga ah oo Soomaalida ka ahayn oo raba intayna duumiyeen dawladdanadii inaan dawlad kale inoo dhalan horta aan iska celino aan dawlad xoog la samaysano aan dhaqaale samaysano aan sidaan ahaan jirnay aan ku soo noqon iyo lixdamiyadii markaan istaagno dawlad ahaan oo system dawlad noo shaqeynayo dhaqaale ahaan dhaqaalana uu fiican yahay jaamacada iyo masaajidiyada iyo ma taqaan meelo wax lagu barto badan samaysano dadkan qurbaha ku maqan oo wax bartay gudihii ku noqdaan arintan in shanta meel bal isaga yimaado kilka shanaad Garissa NFD Djibouti Somaliland koonfurta Soomaaliya hal meel la fariisto la yiraahdo dhaqankan diinta islaamka ka soo horjeeda Soomaalidu ka soo horjeeda akhlaaqdu ka soo horjeeda nolol maalmeed ka soo horjeeda wax ka soo horjeeda hal la tirtiro marka waxay u baahan tahay in qaabkaas xilligaas ugu haboon in waxaan laga hadlo oo qaab farsamo looga hadle qaab caadifad iyo oohin iyo qabiil cay iyo baloorasho iyo tol beelay iyo hoogayo baay iyo xabad qaraac iyo na wax ku xalismaya ma arintan waa arin farsamo iyo technical iyo aqoon iyo dhaqaale iyo power dawladeed iyo waqti badan iyo iimaan badan iyo cilmi badan iyo dhaqaale badan iyo dulqaad badan iyo samir badan iyo shaqo badan u baahan way marka waxa idin leeyahay aamusa oo arintan ka aamusa oo faraha kala baxa oo ma taqaana oo waxba kama qaban kartaan oo waxba ka garan maysaan waa si qaribaysan qaala tacaala ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله إبوين وحسك له غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض عرك يقول يا شو حكوا قرصوا وكم مقن إلهي بأسكله ولله يرجع الأمر كله ترى ما أنت إله بقى علنيه أمرك إيه تلاذ إله بأسكله بوسكو إله دقة ولا دقة هيا إله بوسكو دقة محيطة قال تعالى إن أكرمكم أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ذاتك قفك أوفي عن قفك إله كبا قوي قفك أو تقوض بدنوي حال كاس بوس كاس تلا دقة هيا تاس وقلب أذنك بيرسنا قال تعالى فاعبدوا وتوكل عليه أيضا معنا دعوة إله عبد أسجنا تلاسار إلهنا عبودة دينتين الإسلام كي صوماليين كسوق نادا سمر يدل قادنا موتية أرنتانا شقادة قيبتا الذين كقب صدا أذين كإنت أسعدين كوري قولا أفرت بيلوت أو شاقة إني تمويهين قال تعالى وما ربك بغافل عما تعملون
وهذا معناه هذي واحد سمينا إنسان ربي مموجة ربي ما هلمان سنة ربي كمان مقنع وكا waxaa dulan bilowdeen abkowgiini isirkiiyo farciini ay bilaabeen dhowr kun oo sano ka hor dhowr boqol oo sano ka hor adinkuna hadda weli aad sii wadaan ilaahay waa og yahay qaala tacaala wamaa lidaalimiina wamaa hiya min adaalimiina bibaciid qowmulood meeshii lagu hanaagay qolada quraasheed oo maka degan adiga nabi maxamed lagu saaray kama fogo way aayadda macnaheeda hadda meeshii qowmuluud lagu halaagay adinka soomaalida idinkama fogo sacuudigu ilaa urdiga sacuudi dhexda lagu hagaalay soo maha maxaa loo halaagay inay qowmuluud yihiin oo ragga gadaal ka boodaan dembigan ah inaad qof muslina oo soomaaliya aada xaqirto oo dulanto hadduusan kasii darnayn niman gadaal iska boodaya kama liito sidii dhagxaan loogu soo daadiyo in dhagxaan laydinku soo daadiyo ilaahay waxba kuma ah baddan weynanka badan oo ilaahay agdejiyey mararka qaarkood malaha waxaa israada markaan arrintan ka hadlaayo tagxirka iyo dadkan soomaalida oo aada fonkorteen oo takoorteen ood ku tacadideen malaha ilaahay dhaqankoodan iyo badda wuxuu isku xijiyey in sidii qowm nuux lagu soo halaagaa la rabaa marna waxaa idhaahdaa ama sidii reecad la rabaa in lagu qayliyo dabayl lagu diro bahal dabayla qaylana loogu daro oo dabayl iyo qaylo soo dala dhexe qaas mar waxaa idhahdaa sidii qowm mataqaan qowmu saalix reer thamuud sidoodii amaa lagu qayliya inta juri loo soo diro ayagoo dhan degaan degaha ha noqdeena qaala tacaala ina rabbii calaa siraatin mustaqiim aniga rabbigay waddo toosan buu ku sugan yahay marka waddada toosan oo siraatu mustaqiimka ha lagu dhaco rabbiga rasuul ha lagu dawafaylo qaala tacaala ina rabbii calaa kulli shayin muxiid ina rabbii calaa kulli shayin xafiid ina rabbii calaa kulli shayin xafiid ilaah wax kasta waa ilaalinahaya wax kasta wuu arkaa wuu ilaalinahaya adinka afartiinaan beelooda oo sheegato inay tun wen yihiin oo waa wen yihiin ilaahay waa idin ilaalinahaya waxaa samaynaysaan wuu idin ilaalinahaya warkaygii maantay saddexdaas qodob ayaan kusoo koobay waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaad ka gaabsataan dadkii dhalinyarada aho inaad arrintan isaga gaabsataan arrintan waad sii halaynaysaan labadiina dhinacba dhinacan beesha shanaad iyo dhinacan afartanba arrintan ka gaabsada faraha kala baxa arrin facebook lagu dhammayn karo ama looga hadli karo way ka weyn tahay waa arrin culus oo soomaaliya marka laga hadlayo sida dowladdii soomaaliya sagaashankii burburtay in loo soo celiyo la rabo hawsha ku baxaysa intay la eg tahay kama yara midaan laftigeedu waa howlaha ugu waaweyn oo soomaaliya hor yaalla wey haddaan dadka soomaaliya nahay marka maahan arrin ciyaar iyo lagu geli karo qosol iyo kaftan maaha waa arrin miisaan culus la wey marka dadkan muslimka oo soomaalida oo walaalaheen nala dhashay nabarkii hore oo aad ku dhufateen afartiinaan sheegta inay tun wen yihiin hadda waranka ha kusii liglilina ha kusii nuuxnuuxinina ha kusii qarqaraacnina joojiye halkaas ku xira waagii adduun noqdo ha la isku yimaado meelna hala saara arrintan hana lasoo afjaro wa sala allahu calaa sayidina wa nabiyina maxamed cabdihi wa rasuuluhu aad iyo aad baa mahadsantihi